beerta nabadda waxaan leeyahay maasha Allah waa adeegyada casriga laga helaa waa ujeediyeen baabuura meesha lagu wadaa ku soo dhawaada caruurtiina farxad geliya beerta nabadda ee magaalada Muqdisho oo ah beerta ugu baaxadda weyn marka la eego goobaha loo dalxiis tago ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaan ku suganahay isla markaana ay u dhameystiran yihiin qalab walba oo loogu talagalay in lagu dalxiiso gaar ahaan dadka waaweyn iyo sidoo kale caruurta intaba maanta oo ay tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidda ayaa waxa halkan soo buux dhaafiyay dad fara badan oo markaasi isugu jira caruur iyo ciroole doonaya in farxadda ciidda ay halkan ku qaataan waalidiinta ayaa maanta waxa ay caruurtooda u soo raaceen beerta nabadda ee magaalada Muqdisho si markaasi ay ugu ciyaaraan agabyada kala duwan ee dhex yaala beerta nabadda ee magaalada Muqdisho oo ah goob soo jiidasho leh isla markaana ku wacan dalxiiska dhammaanba agabkan iga dambeeya ayaa waxa uu yahay mid si free ah ama lacag la'aan ah ay caruurta halkan joogta haatan ay ugu damaashadayaan iyagoo aysan jirin wax khidmad ama lacag ah oo laga qaadayo waana markaasi waxa beerta nabaddu ay dheer tahay goobaha kale ee loo dalxiis tago waxaan la kulanay qaar ka mid ah waalidiinta iyo caruurta u soo dalxiis tagay beerta nabadda ee magaalada Muqdisho si aan caruurteedu u farxad gelin ayagaan la joogaa halkaas meeshaan ay ku baashaalayaan marka maalin farxadeed waaye saas daraadeeda mataqaana u farxad gelinay maalmaha ciidda iyo toddobaadka fasaxa iyo caruurta la siiyay aad iyo aad caruurta xaqay leeyihiin si kalsooni iyo qurux ay ugu koraan waa in mataqaana waalidku waa inuu la ciyaaro la joogo oo kulkuliya cunugu wuxuu ku soo baxayaa cunug kalsooni leh oo fiican laakiin hadda iska dheerayso wuxuu noqonayaa qof aan kalsooni leh waxaan joogaa beerta nabadda ee ilmaha wiifoogi noo baashaalaan ciid wanaagsan ay gaarsiinaa maada iskale universal ee noogu timid beerta nabadda walaahi beeraha kale way ka fiican tahay maasha Allah ilmuhu joog degan ku qaadayaan wiifooyaal lacag la'aan oo kaaliska aragay ka helayaan هو كالس كاري فيستان كل عام وأنتم بخير عيد ونكسن دمار أمة الصوماليات ما أنت ماشي أنا أسوع عيد سنة ما شاء الله مقالة النبضواي تتقوى فرحسينهين وقروح بديهين عرورته ورن ولا سوبحية ما أنت وحالك لقي جوابها دالحيس كالك لقي ما أنت مركا ضدك عيد سنة يعني كميد أهي عباش الصوماليات عرورته هذا عيد سوكحية ما أنت جودنا واجب كاس farxadda caruurta la wadaagayo ayaan ka mid ahay beerta nabadda joognaa maanta dhammaan wiifooyadana waa soo marsiinay waa soo baashaalnay ciid mubarak yaa kula socdo abo iyo walaalo yaa salaami hooyo iyo walaalo dadka maxaa leedahay xale mud Soomaaliya xale ciid wanaagsan Cabdiraxmaan yaa kula socdo aba iyo maanta inta soo aadeen beerta nabadda maxaa soo doonteen عيد إنا عيد ستين أي يا سلامي والدكي فملكي ولا لي نشاد هي حاجة كتمي دقمدة وحمر جب هي كور ما أنت حاجة جوكتا beertana wadab aan joogaa ciid wanaagsan ku soo dhawaada beertana wada waxaan leeyahay saaxiibada ku soo dhawaada beertana wada ay magaca Samira ay xagee ku soo ciidaysatay aniga degmada xamar jab ay ka waran maanta ma ku waraysan kam soo imaan jirtay ma jiri mar walba imaana ya salaamay mar dadka la salaamay saaxiibada maxaa leedahay soo dhawaada beertana wada soo ciidaystay كور ما أنت محاكو جعلت بيرها وحن عيارايو إيه إيه فرحسنة عيد مبارك عيد وناكسن سنة كدم إلهي عافماد ينودها نقول قرسي إن شاء الله كويس حاجة كيسو عيد استادي عبد العزيز كسو عيد سنة مركوا كفر حسن هذيك كيجا ميامسة أنا جيو فاملي جيجا الحمد لله عرورة كورنا أذا جيدا بيرت نبضع كيشان ما شاء الله والله دمان أوكي واي دمان تيجي ذيك أنا كساقف جلسة عيديستا إسماعيل حاج عبد الله وكمذا ماملك بيرت النبضة هي سيدو كلا لها اللي تلفزيون كيونيفرسال وحاونا فافاين كبحيي أذا جيدا يوحيالها كلا دوان بالشدة الصوماليات أي بيرت وهيسو بيرت النبضة وحي كمت هاي ميلها أنت بدن أي دتك أصول الحستاجان beertii ugu horeysay beertii ugu baaxadda weyneed
runtii ciidanna waxay ka duwan tahay ciidihii hore waa laba ciid laba munaasabadood oo isku kulmay jimco iyo ciid marka runtii sidaad u jeedaan beertu waxay ugu tala gashay caruurta halkan u soo ciideysanaysa in laga warqabo badqabkooda caafimaadkooda iyo haddii ay dhumaan in la baafinayo oo cunugii dhumada isla markii la qabanayo familkiisa lagu raadinayo sidoo kale albaabka dadka markay soo galaan waxaa jirto isbuurasho qofkii xaalad caafimaad ku timaad waxaan u samaynaynaa gargaar degdeg ah aan u diyaarinay oo isbitaalada magaalada muqdisho qaarkood aan wada shaqayn leenahay marka guud ahaan beerta nabaddu waxa ay kaga duwan tahay meelaha kale qalabkan oo manualka ah waa qalab free ah oo caruurtu iyo xitaa dadka waaweyn gabdhaha iyo wiilasha ay ku cayaari karaan oo ay fooli karaan si free ah oo meelaha kale kaga duwannahay muddo 10 sano oo beerta ay fulan tahayna waa lacag la'aan sidaas ay dadku halkaan ay qaas kaga tahay meelaha kaleeto maadaama ay sidaa yihiin halkaan ay noo tahay free waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan insha allahu tacaala maalinta koowaad ee adxada kulley soo hilibayso halkaan faakihiisa umaado insha allahu tacaala waxaan idiin haynaa soo dhaweyn maqaayado runtii jikinka albeed oo ay meelaha kale ay kaga duwan tahay oo dadkanu aad ay u xiiseeyaan ay jecel yihiin insha allahu tacaala soo dhawaadaan idin leenahay ku soo dhawaada gacmo furan beerta nabadda ayaa waxa ay tahay goob ku wacan dalxiiska iyadoo markaasi leh goobo kala duwan oo loogu talagalay in lagu qaato jawiga iyo sidoo kale farxadda maalmaha ciidda maxamed ile universal TV beerta nabadda